halkani waa Som Modern Media. maanta waxaan halkan idinku hayaa wararkii caalamka. Jack Ma waa mid ka mid ah taajiriinta caalamka, waa ninka iskale shirkadda Alibaba. muddo 2 bilood ah laguma arkin fagaareyaasha caalamka, isagoo isla markaa xitaa kasoo dhex muuqan waayay meel bandhig ah oo la rabay inuu goobjoog ka ahaado. Dalka Kenya waxaa dib loo furay iskuuladii. Jack Ma waa ninka ugu caansan Shiinaha, sidoo kalena caalamka oo dhan laga yaqaano. waxay ahayd 24 Oktoobar markii uu ka soo muuqday meel fagaare ah oo ahayd magaalada Shanghai ee dalka Shiinaha. halkaas wuxuu ka soo jeediyay hadallo, waxaana goobjoog ka ahaa dad ka socda maamulka ka arimiya dalka Shiinaha. hadaladii uu meesha ka jeediyay oo ahaa kuwo uu ku dhaliilayo dowladda kadib go'aano ka soo baxay maamulka oo ku saabsanaa dib u habeyn lagu sameynayo teknoolajiyada Shiinaha. muddadaas kadib wuxuu maamulku tallaabooyin ka qaaday shirkadihiisa, waxayna dib u dhigeen bandhig shirkaddu uu leeyahay oo la rabay in uu noqoto mid adduunka ugu weyn. sidoo kale waxaa la bilaabay baadhis ku saabsan shirkadiisa Alibaba. bangiga dalkaas ayaa wuxuu ku soo rogay in deymaha soo celiyaan shirkadihiisu. Jack Ma ayaa waxaa dhinaca kale laga waayay Twitter-ka, lagumana arkin ilaa bishii Oktoobar, xilligaas oo uu xayeysiis la sameeyay dhaxal sugaha Britain ee William. Jack Ma waxaa hoos u dhac ku yimi sidoo kale dhaqaalihiisa, waxaana uu lumiyay lacag gaaraysa $11 bilyan. dalka Kenya waxaa dib loo furay iskuuladii. boqolaal caruur ah ayaa safaf ugu jira maalinnimadii Isniintii iskuulada wadankaas. iskuul ku yaala xaafadda ugu weyn Nairobi ee Kibra ayaa caruurta waxay safaf ugu jireen in ay dib ugu bilaabaan kalaasyadoodii. waxaa la xidhay iskuulada wadankaas sanadkii hore bishii Maarso. Kenya ayaa noqotay wadanka u dambeeyay ee bariga ku yaala bariga Afrika ee fura iskuulada. hay'adda caafimaadka adduunka ayaa ka digtay xidhnaanshaha iskuulada, iyadoo sheegtay in ilmaha aysan u fiicnayn xidhnaanshaha iskuuladu, ayagoo ku noqon karta caqabad korniinka caruurta. laakiin waalidiinta wadankaas ayaa cabsi ka qaba arrinkan. Maureen Obayanga ayaa sheegtay, waxaan rajaynaynaa caruurta inay caadi iska noqonayaan, laakiin ma hubo sida iskuulka Olympic oo ardaydiisu xad dhaaf tahay uu u maareynayo. caruurta qaar ka mida ma yaqaanaanba bay tiri sida loo dhaqdo faraha iyo siday u taxadari lahaayeen. caruurta dhigta fasalada 4, 8 iyo 12 ayaa bishii 10 kusoo laabtay fasalada, iyagoo u diyaar garoobaya imtixaanada. wasiirka waxbarashada ayaa sheegay in dowladdu ay sameynayso wax kasta oo lagu ilaalinayo caafimaadka ilmaha.